sabtidii ay ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay in baarlamaanka uu kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisii. dad badan ayaa la yaabay sida degdega ah ee go'aankaasi uu ku yimi iyo waxa xilligan ku soo beegay. dawladda hadda jirta waxa uu waqtigeeda ku eg yahay bisha February ee sanadka soo socda. dad badan oo siyaasadda Soomaaliya la socda ayaa waxa ay qabaan in isbeddelkan u dambeeyay uu keeni karo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada iyo sidoo kale caqabad soo wajahda heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa waxa ay ka dhigan tahay kalsooni kala laabashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo saamaynta siyaasadeed ee ay yeelan karto arrintan. waxaa soo gabagaboobay mid ka mid ah halhaysadii caanka ahaa ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in isaga iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla dhamaysan doonaan muddo xilliyeedkooda. waxaana ay dad badan dareemayeen in maadaama uu madaxweyne Farmaajo laftiisa mar soo ahaa ra'iisul wasaare culays lagu saaray inuu xilka iska casilo in waayo aragnimadaasi uu ka faa'iideysan doono. madaxweyne Farmaajo oo sanadkii hore soo gaaray magaalada tan Washington ayaa waxa uu sheegay in dawladda uu madaxweynaha ka yahay ay ka nabad gashay ishaysadkii hore looga bartay dawladihii ka horreeyay. safaaradda waxa ku iibinayay sheegaya oo waxyaabihii isku jiray yaa meel dhignay madaxweyne iyo barnaamijka sidaaya wixii uu kharash gareyn jiray waxa safaaradaha ku sheegay marka laga soo tago kala aragti duwanaanshiyaha mararka qaar la arkayay haddana ma jirin khilaaf weyn oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre waxaana dad badan ka isku noqotay markii uu gudoomiyaha aqalka hoose ku dhawaaqay in kalsoonidii ay kala noqdeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre. baarlamaanka sidaan ayuu u codeeyay waxaa oggol u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha. sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka ku-meel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaabaa ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay. ra'iisul wasaare Khayre oo xilliga uu gudoomiyaha baarlamaanku sheegay in kalsoonida ay kala laabteen ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay magaalada Muqdisho wuxuuna aqbalay in xilka uu iska casilo isagoo sheegay in kalsooni kala laabashadu ay ahayd mid aan loo marin dhaba sharci ah. anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajendaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka. inkastoo ra'iisul wasaare Khayre uu noqonayo ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dawladihii 20 sano ee ugu dambeeyay dalka soo maray haddana xilka qaadistiisa waxa ay ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo ay howlo badan hor yaaleen dawladda hadda jirta. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marna ahaa madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa weydiiyay sida uu arko arrinta baarlamaanku uu sheegay inuu kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaare Khayre iyo xukuumaddiisii. wixii ka dhacay baarlamaanka runtii waxay ahayd wax qeyr dastuuri ah waxay ahayd wax qeyr sharci ah waxay ahayd waxaan sax ahayn waxaa la baalmaray xeersaadkii iyo nidaamkii iyo processkii la rabay in loo maro haddii mooshin laga keenayo prime ministerka haddii shaqadiisa la dhaliirayo in isaga fursad siiya uu hadlo isdawladdu isdifaacdo waxaasoo dhan ma aysan dhicin. waxaad moodaa wax laga soo shaqeeyay oo lasoo abaabulay oo sidii shirqool u eg ayay ahayd wax saxana maaha wax nidaamna ma ahayn wax ku habboon baarlamaankana maaha wax nidaamka dowladnimada ku habboonna aniga ilama aha. runtii waxay u tahay taariikh xumay baarlamaanka u tahay mooyaane wax hadda u dhintay ra'iisul wasaaraha ma ay jirto. inkastoo siyaasiyiin badani ay u aaneynayaan xilka qaadista degdega ah ee ra'iisul wasaare Khayre inay salka ku haysa arrimaha doorashada haddana dadka qaar waxay leeyihiin eedda ku aadan arrimaha amniga iyo in xilligan aysan jirin doorasho la isku raacsan yahay waa mid qayb ahaanteeda eedeeda uu leeyahay ra'iisul wasaare Khayre iyo xukuumaddiisa
sida uu sharxaya Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhigay jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka. xilliga uu baarlamaanku kalsoonida kala noqday ra'iisul wasaare Khayre waa xilli aad xasaasi u ah oo dalku doorasho u diyaar garoobayo. qaabka loo maray xilka qaadistaas 170 xildhibaan ayaa ka codaysay ra'iisul wasaaraha, taasoo macnaheedu yahay in ra'iisul wasaaruhu waayay kalsoonida in ka badan kala bar golihii shacabka. dabcan marka taas waxay keenaysaa inuu xilki waayo, asagana wuu aqbalay, madaxweynihina wuu aqbalay. arrimaha ku saabsan xeer hoosaadyadii ma la waafaqay iyo nidaamkii saxda ahaa ma loo maray iyo inuu isdifaaco fursad ma loo siiyey. waxaan ognahay dhowr iyo 20 sano lasoo dhaafay waxaa la riday in ka badan 8 ra'iisul wasaare iyagoo kulligood leh xeer hoosaadkii lama marin. arrintaas arrin baarlamaanku inuu ka shaqeeyo u baahan yahay weeyaan. isbeddelkan u dambeeyay ayay dad badani qabaan inuu ku lamaanan yahay dib u dhac ku yimaada hanaankii doorashada. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay hadal uu jeediyay ku sheegay in kalsooni kala laabashada ra'iisul wasaare Khayre ay xagal daacinayso kulamadii Dhuusamareeb iyo kulanka la filayo in uu dhawaan ka qabsoomo magaaladaasi. haddaba sidee isbeddelkan dhacay uu saameyn karaa kulanka la filayo in bisha soo socota uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb si go'aan looga gaaro hanaanka doorashada ee Soomaaliya ay qaadanayso? waa kan Mursal Sani oo ka tirsan Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho. horta waxay ahayd inaysan saameyn ku yeelanin waxa dhacay shirka Dhuusamareeb loo balansanaa 2 usbuuc kadib madaxdana isugu soo noqdaan. laakiin sida muuqata wadanka ayaa khalaas galay oo ra'iisul wasaare soo shaqeynaya 3 sano iyo wax la jira ayaa meesha ka baxay oo yeelan doonta maaragtay cawaaqib badan oo saameyn badan ku yeelata siyaasadda Soomaaliya mustaqbalka dhow. marka waxaan isleeyahay saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa in doorasho in lagu wada noqdo Dhuusamareeb oo isku arka waqtigii loogu talagalay inaysan dhicin ayay u badan tahay. waana dhici kartaa in la tago, laakiin midda dhabta ah waxaa waaye in doorashadii xilligeeda inay ku dhacdo loo ballansanaayo lagu soo heshiiyey inay meeshaasayto ay mugdi gali doonto ama ay u badan tahay in irdihii dib loogu furay in waqti korarsi irdihiisa la furay ayaa muuqato loo arkayay markii la joogay oo lagu heshiiyey Dhuusamareeb inay soo xirantay arrintaas. isqabqabsiga siyaasadeed, mooshinada iyo xilka qaadistu waa mid siyaasadda Soomaaliya lagu arko mar walba oo ay dhammaanayso muddo xileedka dowladda markaasi jirta. taariikhda siyaasadda Soomaaliya dhawaangal kuma aha ra'iisul wasaare sanad ama bilooyin yar xilka haya. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena xilka hayay xilligii kala guurka ee 2012 ee la soo dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdiweli Cali Gaas ayaa weydiiyay waxa keena qalqalka siyaasadeed dhamaadka muddo xileedka dowladihii Soomaaliya soo maray 20 sano ee u dambeysay. dabcan waxaa la gaaraa waqtigan oo kale waqtigii la yiraahdo baarlamaanku uu weerixi jiray oo marka waqtu ka dhamaado ay la raadin jiray sida ay ku darsi ama se extension ama se inay dheereystaan waqtiga ay uga shaqeyn lahaayeen. wayna dhacdaa 2012 dabcan annaga baarlamaanku nagama keeni karin, aniga musho igama keeni karin ra'iisul wasaare ahaan sababtoo ah Kampala Code ayaa arrintaasi yani diidaysay. marka runtii ma aanan baarlamaan markaasi awood leh oo xukuumadda ka keeni kara mooshin ma uusan jirinin. madaxweynaha iyo gudoomiyihii baarlamaanka markaa jiray Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Sheekh Shariif iyo anaguna isku aragti baan ka ahayn arrinta doorashada. waxaan kulgayo ka shaqeynaynay in doorasho dhacdo wadankaanina doorasho wadan gudihiisa lagu qabto markii horeysay 2016 madaxweynaha waqtigaas joogay Xasan Sheekh Maxamuud runtii isaga ayaa riixayay oo rabay doorashada in wadanka doorasho ay ka dhacdo, laakiin baarlamaanka iyo guddoonkiisa waqtigaasiba waxay la soo taagnaayeen oo lahaayeen baarlamaanka waxa bedeli kara baarlamaan la soo doortay. ujeedadiisu ahayd ilaa si haddaba ay ku doodayaan cod iyo qof loo helo annaga sii joogayna. wax saxana maaha. haddii taa tahay dee ha ku shaqeeyaan waqtigeeda ha lagu qabto. haddii lagu qaban karo doorasho cod iyo qof ah 3 bilood soo socota haddii ha ku qabtaan, laakiin arrintaas suurtagal maaha. ujeedaduna waa cimri dheeraysi iyo kororsi weeye. wayna dhacdaa mar kasta oo marxalad kala guura la gaaro baarlamaanku sidan in u dhaqmo waa caadi weeye. wax hadda annaga qariib lagu amaaha. dadka siyaasadda la socdahay waxa ay qabaan in xilka qaadista ama riditaanka lagu sameeyo madaxda sare ee dowladda ama mas'uuliyiinta u sareysa dalka aysan ahayn mid xal ka keenta caqabadaha taagan.
balse ay tahay mid albaab u furta caqabado kale iyo khilaafaad hor leh waxaa sidoo kale ay dad badani qabaan in bixitaanka Khayre ay keeni karto in dawladda jirta ay albaabo badan oo markii hore ka xirnaa ay ku soo furmaan sida uu sharxayo Mursal Sani oo ka tirsan Maxadka Heritage wanaagsan wasaaraha wadajirkoodii waxay u ahayd xayndaab ay u ahayd dawladda ay xuduud ah oo looga soo gudbi karin khaasatan madaxweynaha marka waa lagu amaanayay 3 sano inay wada socdaan iyo wax ka badan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha walow anaga aan si kale u arkaynay oo marar badan sheegnay in marka wixii meesha ma aha dad shirka ah oo lacag isku darsada ma aha waa siyaasad wax laga shaqeynayo xisbiyada siyaasadda oo tartamay oo la yaqaan caalamka oo ajanda cad lahaa oo hierarchy la yaqaan kala sareyn la yaqaan lahaa markii madaxweynaha wasaarad dhistaan ayaa markii waqti joogan waxay isku qaban jireen sida dalka loo hogaaminayo isbedel ayaa ka dhici jiray meeshaas marka madaxweynaha wasaarad asaa magacaabay wuxuuna sheegay ra'iisul wasaare fiican qofkii ugu fiican Soomaaliya oo ka dooran lahaa inuu doortay ama nin asaga ka fiican uu ra'iisul wasaare ka dhigay madaxweynaha ayuu ku celiyay dhowr mar oo jeer oo publicly u hadlay sida aan qarsoodi ahayn marka xayndaabkaas waa jabay madaxweynaha dhaawac weyn ayay ku tahay inkastoo uu ra'iisul wasaare Khayre saameyn siyaasadeed oo weyn iyo ologba ku lahayn gudaha dalka haddana beesha caalamka ayaa qoraallo kala duwan ka soo saartay xilka qaadistiisa Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa qoraallo adag kaga hadlay iyagoo ku tilmaamay xilka qaadista ra'iisul wasaare Khayre in loo maray dhabo aan dastuuri ahayn sidoo kale IGAD ayaa soo saartay fariin ka duwan tan Mareykanka iyo Midowga Yurub iyagoo u muuqday inay aqbaleen wixii dhacay haddaba qoraaladan adag ee beesha caalamka maxay ka dhigan tahay maxay si xilligan bedeli karaan waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota oo ka warramaya saameynta dareen muujinta beesha caalamka Mareykanka safaaradoodu waxay ka hadashay inay ka warwarsan yihiin waxay ku tilmaameen qasoodayaasha wax cusub ma aha siday uga dareen celinayaan hore waxaan u ogeyn markii warlords wadanka haysteen ay qalalaasaha xun wadeen inay had iyo jeer dowladda Mareykanka safaaradeedu odhan jirtay waxaan u ogolin waxaan way xun yihiin marka ismalihii wax weyn oo raadka taga ayay keeni doontaa mowqifka maanta joogaan walaal oo kuwii hore unbay la mid tahay qolooyinka kale reer European-ka waxaanu ka soo daaraan deganaa waxaanu siinay ama caawimadanu siinay iyo deeqaanu siinay Soomaaliya waxa laga yaabaa muddo gaaban inay cod ka keenaan oo ilaahan sidan iyo sidan maaha kulay bana dawladda kuwa ku hadhay ee madaxweynihii iyo kuwa baarlamaanka way la hadlayaan laakiin se wax weyn oo aataar leh ma bedeli doonaan waayo taariikhda hore ayaa ku tusaysa inay mar walba sidaa uga qayliyaan laakiin markuu tareenku socdo inay iska daba fuulaan walaal isku soo wada dubo waxa hadda madaxweyne Farmaajo looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo xilligan kala guurka ah dalka ka saara doorasho heshiis lagu yahay iyo inuu dib u soo kasbado kalsoonida wadamada reer galbeedka iyo siyaasiyiinta tumisan in dawladda hadda jirta ay isku diyaarinayso muddo koros dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaynaa inuu la xiriirnay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda federaalka ah balse ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintan mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi